kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa maalinimo khamiis taariikhduna ay ku beegantahay 5 bishii koobaad 2023 qodobada wararkeena ugu daroona waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray ku wareejisay dalka Imaaraadka Carabta taasi oo fadeexad weyn ay ka dhalatay haddaba maxay tahay ujeedka dawladda federaalku ay ka leedahay wareejinta ciidamada Eritrea ee lagu wareejinayo in Imaaraadka Carabta ay maamushaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaana meesha ka saartay wareegta dawladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay khibrada ciidan ee caalamka ka kala socotay ay kaga saartay gudaha dalka Soomaaliya dawladdan hadda jirta ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana gabi ahaanba meesha ka saartay wareegtadaasi iyadoo gabi ahaanba khibrada ciidan ee markaasi caalamka u fasaxday in ay ka adeegtaan xeryaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin bilihii ugu dambeeyayba khibrada ciidan ee isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa lagu arkay General Jordan oo kamid ah xeryaha waaweyn ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin iyagoo halkaasi ciidamo ku qoranaya Soomaaliyeed oo aan la garanaynin ujeedka iyo waxa ay ku qabanayaan arintani waxa si weyn uga falceliyay mas'uuliyiin tiro badan oo hadda xilka haya dawladda federaalka iyo kuwa horay xilal u soo qabtayba iyagoo arintaasi u arka arin aan marna loo dul qaadan karin isla markaana dawladdu ay ku khaldantay wareejinta ciidamadaasi dalka Eritrea lagu soo tababaray ee markaasi lagu wareejiyay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta maxaa ka soo baxay shirkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dulmaasiinta beesha caalamka ee ku sugnaa xerada Xalane qodobo dhowr ah oo markaasi laga doodayay taasi oo dan weyn u ah shacabka Soomaaliyeed iyo waliba jiritaanka dawladda federaalka ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa dhinaca kale to dagaal xoogan oo xalay siqdii dhexe ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa gabi ahaanba ciidamadii Somaliland ee ku sugnaa gudaha magaalada Laascaanood looga saaray iyadoo jabkii ugu weynaa halkaasi lagu geystay ciidamada Somaliland ayaana iskaga baxay magaalada Laascaanood kadib markii dagaalku ku adkaaday kaasi oo ay soo qaadeen maleeshiyaadka deegaanka ee ka gadoodsanaa xaaladihii maalmihii ugu dambeeyay ciidamada Somaliland ay ka geysanayeen magaaladaasi duleedka magaalada Laascaanood ayayna isku urursanayaan ciidamada Somaliland oo markaasi quudareynaya doonayana inay dagaal mar labaad ku soo qaadaan magaalada Laascaanood beesha ogaadeen ayaa dhinaca kale waxa ay uga cad ku mareen in ay garab taagan yihiin dhulbaante isla markaana ay hub iyo ciidan iyo waliba dhaqaalaba ay la garab taagan yihiin iyagoo fariin culusna u diray madaxweyne Muuse Biixi iyo waliba beesha Idoor oo ay sheegeen in ay ku soo duuleen beelaha dhulbaante ee dega gobolada SAC ciidamada Uganda ee ku sugan magaalada Muqdisho oo war ka soo saaray weerarkii foosho xuma ee ka dhacay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahinaya daawadayaal warkeena kaga bogan doontaan haduu eebaydno balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanayna haduuna soo gaadha muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga oo nagu soo biira waan idinka mahad celinaa la joogitaankiina mahadsanidin ayna ku bilownay maalmihii ugu dambeeyayba waxaa soo socday fadeexado loo jeedinayo dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo la xiriidha in dalalka Masar Imaaraadka Sacuudi Carabiya ay ciidamo ka qoranayaan gudaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo ay doonayaan inay u adeegsadaan doorashooyinka iyo waliba wax walba oo ka dhaca markaasi ay ka doonayaan in ay ka fushadaan gudaha dalka Soomaaliya arintaasi oo soo bilaabatay xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleystay kursiga ayaa isa soo tareysay iyadoo haddana ay soo baxday in ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea gabi ahaanba dawladda federaalku ay ku wareejisay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya wasiir TikTok oo ku sugan magaalada Abu Dhabi ee xarunta wadanka isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa halkaasi heshiis kula saxiixday dhigiisa gaashaandhigga ee wadankaasi isla markaana heshiiskan ayaa waxaa kamid ahaa qaybo kamid ah in ciidamada lagu soo tababaray dalka Eritrea ee 5 kuna lagu wareejiyo dalka isku tagga Imaaraadka Carabta qodobada lagu soo heshiiyay ayaa kamid ahaa xoojinta iskaashiga wadanka isku tagga Imaaraadka Carabta iyo wadanka Soomaaliya iyo sidoo kale la dagaalanka ururka Al-Shabaab balse waxaa iyadana qayb ka ah in ciidamada 5 kuna ee wadanka Eritrea lagu soo tababaray gabi ahaanba lagu wareejiyo dalka isku tagga Imaaraadka Carabta oo bilihii ugu dambeeyayna ciidamo kale ka qoranaya gudaha dalka Soomaaliya arintani ayaa si weyn waxa uga falceliyay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan oo kale oo markaasi si degdeg ah uga soo jawaabay heshiiska ay gaadheen wasiirka gaashaandhigga iyo dalka isku tagga Imaaraadka Carabta
mas-uuliintani ayaa tilmaamay in ay tahay wax si weyn looga xumaado in ciidamo 5,000 ah oo la sugayay in ay qayb ka noqdaan la dagaalanka ururka al-shabaab lagu wareejiyo maamulidooda wadanka isku taga imaaraadka carabta waa iyagoo aan doonaynin in Soomaaliya ay nabadgeliyo iyo waliba xasilooni ay ka dhalato dhinaca kaleeto waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waliba xukuumadda jirta in ay meesha ka saareen wareegto dawladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kaga saartay khibrada ciidan ee wadamada caalamka ee ku sugnaa gudaha dalka Soomaaliya taasi oo dib ay u soo celiyeen isla markaana khibradii ciidan ee wadamada daneynaya in Soomaaliya ay ciidamo ka qortaan ay dib ugu soo celiyeen gudaha dalka Soomaaliya waxaana lagu arkayay xerada General Jordan oo kamid ah xerooyinka waaweyn ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba ciidamada cirka in ay ku sugan yihiin khuburo military oo markaasi ciidamo ka qoranaysa gudaha dalka Soomaaliya oo kamid yahay wadanka Masar isku taga imaaraadka carabta iyo Sacuudi Carabiya iyo waliba wadamo kale oo markaasi daneynaya in ciidamo Soomaaliyeed ay ka qortaan gudaha dalka Soomaaliya dhinaca kale waxa ay xuseen in arintani ay ceeb weyn u horseedi karto hor u socodka iyo waliba qaranimada Soomaaliya in khuburo kale oo wadamo shisheeya ay markaasi maamushaan xerooyinkii ay ciidamadeenu ku shaqeynayeen ee markaasi ay qorshaha ciidamada Soomaaliyeed iyo hor u socodka iyo la dagaalanka ururka al-shabaab laga qorsheynayay hay hadda gacanta ku hayaan khuburo ka baxsan gudaha dalka Soomaaliya oo markaasi aan doonaynin in nabadgeliyo iyo xasilooni ay markaasi ka dhalato gudaha dalka Soomaaliya dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaan ka jawaabin eedeymaha loo soo jeediyay isagoo ku mashquulsan in Soomaaliya laga qaado hubka cunaqabataynta hubka ee saaran waxa uu shalay kulan kula qaatay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee ku sugan xerada Xalane ee magaalada Muqdisho taasi oo ka dhaadhicinayay in gebi ahaanba Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka ee muddada dheer saaran cunaqabatayntan hubka ee saarnayd Soomaaliya ayaa bila ka hor waxa ay dib u cusboonaysay qaramada midoobay oo markaasi kharaar loogu codeynayo in qabatay isla markaana intii badnayd ay u codeeyeen in Soomaaliya aan laga qaadin cunaqabataynta hubka ee saaran muddada dheer madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa codsanaya in sanadka ay qaramada midoobay ku dartay hadii uu dhamaado in laga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran dalkiisa si awood ay ugu yeeshaan ciidamadoodu la dagaalanka ururka al-shabaab iyo in ay si buuxda ula wareegaan guud ahaanba xuduudaha iyo waliba dhulka Soomaaliyeed oo dhanba ayna u yeeshaan awood ciidamadu ay ku qabtaan dhulkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa wadamadii ugu dambeeyay safarada uu u galay waxa uu ka codsanayay in uu taageero ka helo sidii looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka dalkiisa dhanka kale xiisada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib xalay siqdii dhexe dagaal xoogan oo ciidamada Somaliland looga saaray gudaha magaalada ciidamada maleeshiyaadka ee deegaanka ayaana weerar xalay siqdii dhexe ku qaaday magaaladaasi iyagoo ciidamada Somaliland gabi ahaanba cagta mariye kana saaray magaalada Laascaanood oo maalmihii ugu dambeeyayba ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo iyo waliba tacadiyooyin ay geysanayeen ciidamada Somaliland ee halkaasi ku sugnaa in ka badan 35 qof ayaa la dawaan galiyay in ciidamada Somaliland ay si toos ah ugu toogteen bartamaha magaalada Laascaanood iyadoo shacabku ay arintaasi ka gadoodeen ciidamada maleeshiyaadka ee deegaanka ayaana xalay siqdii dhexe weerarka ay ku qaadeen waxa gabi ahaanba ay cagta mariyeen saldhiggii weynaa ciidamada Somaliland ay ku lahaayeen xaafada durdur ee magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool ciidamada Somaliland ayaana la sheegay inuu soo gaaray khasaaro dhimasho iyo waliba dhaawac iyagoo markaasi dhaawacooda iyo dadkii ka geeriyoodayba u qaatay duleedka magaalada ciidamada ayaana halkaasi isku urursanaya waxaana cabsi weyn laga qabaa in ciidamo kale oo tiro badan loo soo dhoobo markaasina ay dagaal rogaal celina ku soo qaadaan magaalada Laascaanood oo hadda ay gudaha ugu jiraan ayna ku sugan yihiin ciidamada maleeshiyaadka ee deegaanka xiisada magaalada Laascaanood oo markii hore ku koobnayd oo kaliya dibadbaxyo ayaa hadda isku rogtay in ciidamo ay iska hor imaadaan iyadoo beelaha daga gobolada SSC ay wacad ku mareen in ay la dagaalami doonaan beesha Isaaq ee ku soo duushay deegaanadooda dhinaca kale dagaalka waxa ku soo biiray beesha ogaadeen oo xuduud la ah goboladan SSC wacadna ku maray in ay hub ciidan iyo waliba dhaqaalaba ay la garab taagan yihiin beesha dhulbaante ee dhulkooda sida xooga loogu soo duulay ku soo duuleen beesha Idoor waasay hadalka u dhigeen xiisadan ayaana isbedeshay iyadoo isku bedeshay hab qabiilaysan isla markaana aad moodid in ay hadda xaaladdu faraha ka baxday oo maamulka Somaliland ay tala ku ciirtay oo markii hore loo baahnaa in ay xakameeyaan isla markaana ay la xaajoodaan dibadbaxayaashii iyo waliba odayaashii dhaqanka ee markaasi tabashooyinka ka qabay maamulkaasi arinta ayaa markii hore waxa
waxa ay ku bilaabatay dibadbaxyo ay dadku ku soo bandhigahayeen cabashooyinka iyo weliba tabashooyinka ay ka qabaan maamulka halkaasi ka taliya oo ka mid ahaa maamulka Somaliland. Shacabka ayaana ka codsanayay in maamulka Somaliland ay wax ka qabtaan dilalka dhacaya gobolka Sool oo markaasi cidii dishayna aan la garanaynin. Arrintaasi kadib dibadbaxyadii ayay ciidamada Somaliland waxa ay u adeegsadeen xabad nool iyagoo maalintii ugu horeysay dilay in ka badan 10 qof oo rayada oo ka mid ahaa dadkii sida nabdoon u dibadbaxayay. Arrinta ayaana isbedeshay, shacabka ayaana waxa ay garteen in dadkii la leynayay ay leynaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi, isla markaana ay tahay oo kaliya in lala dagaalamo iyadoo maalmihii ugu horeeyay ay socdeen dibadbaxyo oo kaliya, balse shacabka ayaa hubkooda la soo baxay waxa ayna wacad ku mareen odayaasha dhaqanka iyo weliba aqoon-yahanku in ay ka dhiidhiyaan oo arrintani aysan u dulqaadan karin ayna la dagaalamaan ciidamada beesha Isaaq ee ku soo duushay deegaanadooda. dhinaca kale xubnihii maamulka Somaliland u matalahayay gobolada SSC ayaa gabi ahaanba iskaga baxay iyagoo iska dhiibay furimaha hore ee dagaalka iyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada maleeshiyaadka ee deegaanka. Waxa ayna sheegeen in aysan u dulqaadan karin tacadiyada iyo dhibaatada lagu hayo shacabkooda iyo xasuuqa la xasuuqaya shacabkooda, isla markaana ay diyaar u yihiin in ay u dhintaan oo la dagaalamaan beesha Idoor ee ku soo duushay deegaanada SSC. Arrintani oo weligeed aan dhicin ayaa u muuqata mid looga guuleysan doono ciidamada Somaliland ayna jab weyn kala kulmi doonto quudaradii ay doonayeen in ay xoog ku haystaan gobolada SSC oo markii hore ka tirsanaa jiray maamulka Puntland. dhanka kale shacabka ayaa iyagu waxay gabi ahaanba doonayaan inay hoos tagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay noqdaan state iyagu markaasi ka madax bannaan in ay hoos tagaan state kale, iyagoo markaasi codsanaya in ay wax la qaybsadaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana aysan doonaynin gabi ahaanba in ay hoos tagaan maamulka Somaliland iyo weliba Puntland oo toona, iyagoo horeyna ula baxay goboladan saddexda Khaatuma state oo uu bixiyay Allaha u naxariistee ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cali Khaliif Galayd oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga. si kastaba ha noqotay xaaladda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa hadda gacanta ka baxday iyadoo maamulkii Somaliland ay u idmadeen inay deegaanadaasi u xil saaran yihiin ay gabi ahaanba iska casileen xilkooda iyagoo ku biiray kacdoonka shacab iyo weliba maleeshiyaadka ka soo horjeeda ciidamada Somaliland. balse xaaladdu sida ay noqoto wararkeena dambe ayaan dawadayaal idinku soo gudbin doonaa. tan iyo kulanti dambena waxaan idinka tegaynaa amaana Allah.